Cunista hal xabo oo toon ah oo ceyriin ah maalin kasta waxay bedeli kartaa daawooyinka qaaliga ah. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Cunista hal xabo oo toon ah oo ceyriin ah maalin kasta waxay bedeli kartaa daawooyinka qaaliga ah. Qarniyo badan xabo toonta looma isticmaalin oo keliya udgoonka udgoon ee sidoo kale dawo dabiici ah oo loogu talagalay walaacyo badan oo caafimaad. Siyaabaha badan ee loo isticmaalo toonta si loo kordhiyo saamaynteeda waxaa ka mid ah in la cuno xabo ceyriin oo toon ah, taas oo la og yahay in ay bixiso faa'iidooyin hoggan. Halka urkeeda qadhaadhka ah iyo dhadhankeeda ay ka saari karaan qaar badan, toonta waxay sii haysaa wax badan oo ka mid ah heryaheeda firfirtoon marka la isticmaalo ceyriin. Ku darida hal xabo oo toon ah oo ceyriin ah hawl maalmeedkaaga waxay taageeri kartaa difaaca, caafimaadka wadnaha iyo wax ka badan. Aynu eegno waxa dhacaya haddii aad cunto hal xabo oo toon ah oo ceyriin ah maalin kasta. Waxay kordhisaa difaaca. Toonta waxaa badanaa loogu yeeraa hoojiye difaaca dabiiriga ah. Allicin ee ku jira waxay leedahay sifooyin bakteeriyada, fayraska iyo antifungal. Cunista hal xabo oo xabo ah maalin kasta waxay hoojisaa nidaamka difaaca jidhka iyada oo ka caawinaysa in uu la dagaalamo caabuqyada sida hergabka iyo cudurrada neef-mareenka. Nidaaminta sonkorta dhiigga. Marka laga reebo caawinta caafimaadka wadnaha, toonta waxay sidoo kale faa'iido u leedahay nidaaminta heerarka sonkorta dhiigga iyada oo hagaajinaysa dareenka insulinta iyo iska caabinta. Dadka qaba sonkorowga ama kuwa halista ugu jira inay qaadaan waxay ka faa'iidaysan karaan kontaroolka gulukoosta oo wanaagsan. Waxay taageertaa caafimaadka maskaxda. Antioxidants hodanka ah ee ku jira toonta waxay ka caawin karaan jidhkeena inuu la dagaalamo hoos u dhaca garashada ee ku xidhan gabowga. Tani waxay sidoo kale hoos u dhigi kartaa khatarta cudurrada kale ee maskaxda sida Alzheimer's iyo dementia ama ugu yaraan hoos u dhigista horumarka. Waxa ay sunta ka saartaa biraha culus. Inkasta oo toonta aanay dawo u ahayn sunta birta culus, caddaymihii taageerada ahaa ee dawaanahan ayaa tilmaamaya in toonta ay ka kooban tahay isku dhisyo awood u leh inay sun saaraan sunta rasaasta, cadmium, methylmercury, phenylmercury iyo arsenic. Waxay wanaajisaa dheefshiidka. Isticmaalka cadcad oo toon ah maalin kasta waxay kirin kartaa soo saarista enzymes dheefshiidka waxayna taageertaa bakteeriyada hiidmaha caafimaadka qabta, caawinta dheefshiidka iyo hababka kale. Dhammaan waxay gacan ka geysataa kor u qaadista nuugista nafaqo ee wanaagsan, dheefshiidka wanaagsan, waxayna kaa caawin kartaa ka hortaga arrimaha caloosha iyo mindhirarka sida bararka iyo calool istaaga daran. Caafimaadka wadnaha. Toontu waxa ay sidoo kale yaraynaysaa khatarta wadne xanuunka iyada oo hoos u dhigaysa cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka. Laakiin sidee? Hagaag waxay ka hortagtaa hubka halbowlayaasha iyada oo hagaajinaysa wareegga dhiigga iyo qulqulka jidhka, islamar ahaantana hoos u dhigaya bararka iyo taageerida guud ahaan shaqada wadnaha iyo xididada, kor u qaadida wadnaha caafimaad qaba. Afeef. Tan waxaa loogu talagalay oo keliya ujeedooyin macluumaad. Had iyo jeer la tasho xirfad leh caafimaad ka hor inta aadan qaadan wax caadi ah oo cusub.